ummadaydan ganacsatadii waxa ay ka waramaysaay waa wax soo socday waana lama arag iyo lama maqal waxaan aqbali karnana maaha dastuurka ayaa jideeyay inuu ganacsigu qofka muwaadinka u dhashay wadanka inuu xor yahay umurtani waxa jabinaysaa saddex qodob oo dastuuriya qodobka koowaad ee dastuurka qodobka 14aad ee dastuurka qodobka 50aad ee dastuurka saddexda qodobba way jabinaysaa waa barshaqo la siiyay iska daayay in ummadayadii la yiraahdo ganacsanina waxaan qaadan karnaa ma ummadani waxay la xaq tahay ganacsiga wajaale ka jira ka loo yacadana la xaqaya haddii aad sigaarka loo yacado iyo siilac ka joojisay madaxweyne wajaalana ka jooji wajaalana ka jooji wadudu waa isku xaq ummaddu waa isku xaq ganacsiga waa ummaddu waa u simantaa Soomaaliland waa u xaq war waxani wax la qaadan kara maaha madaxweyne ad ree awdal iyo reer salal ku haysta waa wax ree awdal iyo reer salal loola bareeray iyagana waxaan leenahay iska daa shaqo layna siiyay ha ganacsanina maraysa tii abweynana kama dhicin tan oo kale wadanka in ummadda ha ganacsanina la yiraahdo war ummadani ganacsigooda ma dhoofiyaan mana soo dajiyaan hargeysa ka iibsadaan boorame ka iibsadaan loo yacadiyo ashcadiyo saylac bay geeyaan xadkiina waxaad u soo dhigtay garbadadar iyo boon inta kalmeena Soomaaliland hay inta kale ee wadanka 200 kiiloomitir xidhan lagama gacansan karaa tiraadeen meena Soomaaliland hay waa dastuur jabin cad una qabataynta awdal iyo salal ku haysta shaqaadkiisa iska daayay wartay ganacsaneen haddii aad ganacsadeen tiraadeen wadankan xaq loo wada ma garanayna laga qaado una qabataynta gobolka